كاga teewaa deegaankayga xaramka waa raggan soo socotay markii loo bixay dadkan waa isla socon sideed qofood qayb ka ah marka ehelkeen waxay yireen naga warsuga annaga ayaa akhbaar idin soo siiyeen idin badbaadi doona haduu Ilaahay idmo qalbigiina khayr u sheega marka sidaas darteed ehelkii waa nagu soo celiyeen mootooyin noo soo direen waxay yiraahdeen soo dhaqaaqa marka waan dhaqaaqnay saako meel raahna la geeyay nimankii in ehelkeen toos u tagayna u maleynay ma aysan noqon nimankii oo al-shabaab aha gacanta nagu dhigay marka meesha wareysi iyo nooga la qaaday haddana waana la waday wareysi waliba qasab ah waana la waday haddana jilib ayaa nala geeyay ehelkeeni waa noo yimiday nimanka waxa uu dhagateena siihaa la yiri marka waxay yireen nimankan annaga danta alleena marka ka gaarna kadib ay idin siinana marka video ana gala duubay meeshaas video-gu ahaa hordhac 4 maalmood wixii aan dhihi lahayn in nala baro oo si qasab ah erigan intana uga leexi kartid intana uga leexi kartid leena naftaada ku dul xiran anaga nafteena aan door bidnay nafteena badbaadinay waan ku qasbanaanay nafteena inaan badbaadsano video-guna waa u duubnay sidaas darteed waa nala fasaxay baadiyaha ehelkeena nagu la wareejiyay ehelkeena aniga hadii aan ka soo tagnay la arkay sidoo ku yimid aniga 2 bilood baadiyaha jooga abeey xanuunsan xamar u soo diray oo geel aan u raacayo oo u ilaalinay kadib aniga shaqo waxa ka helay meel bu'aale nin joogo oo shacab ah aan baala baldoos u waday tuulo liiraha dhibac garoon gobolka Jubbada Dhexe geeska dhamaadka ah xuduudka Kenya 12 kilomitir u jirto meeshaasaan tagay bahashaas aan ku shaqeysanahay oo ilmahayga bil meeshaas uga raadsanay kadib haddana waxa cuslaystay haddana adoo socota hadee ku arkaan nimankan waxa waay shalay Ilaahay ka badbaadiyay haddana waxay ku leeyihiin waji kale kuula dhaqmi karaan waan baxay dhooblaya tagay diyaarada ka soo raacay garoonka Muqdisho ku soo tagay ciideediya imid ilmahayga dhaxay maaday kadib meelaha la xiriiray nabadoona la xiriiray war ananiyaho barnaamijkaas iga dhacay mid aniga qasad ah oo aniga aan ku kalsoonay oo niyadeeda ku faraxsanaadeen ma ahan niyow dawladda haleegeeyo kulli dadkii way iska daw wareejiyeen saraakiil la soo xiriiray nimiyo ninka dambigaas ka dhacay oo sheeg sidaas noqday aan ahay waxa rabaa dawladda sharafta leh in lagu wareejiyo amba afis seerabta iga yeelato saas darteed waa is soo dhiibay godka jilcoona lagu higa ku imaaday cidna ima soo xirin adiga deegaankaaga teewaa deegaankayga xaramka waa raggan soo socotay markii loo bixay dadkan waa isla socon sideed qofood qayb ka ah